الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام وجعلنا ولله الحمد خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa mid aad u jecel bishaarada iyo dadka muslimiinta inuu u bishaareeyo. si khaas ah nabiga saxaabadiisa ayuu u bishaareyn jiray sallallahu alayhi wasallam, sida ku timid fi sunan an-nisaa'i. nabiga sallallahu alayhi wasallam bishan ramadaan marka la gaaro saxaabadiisa wuu u bishaareyn jiray. markaasuu wuxuu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam, ataakum ramadaan, waxaa idin yimid ramadaan, shahrun mubaarak, waa bil barakaysan, waa bil khayraad aad iyo aad u fara badan dhexdeeda ay ku jiraan. markaasuu wuxuu yidhi farada allahu, alla wuxuu idinku waajib yeelay siyaamahu, soonkeeda ayuu bishaas ilaahay idinku waajib yeelay subxaanahu wa tacaala. wuxuuna alla ku waajib yeelay soonkeeda ilaahay qowlkiisa mu'miniinta markuu la hadlay, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah uu ku waajib yeelay bisha ramadaan soonkeeda sida loogu waajib yeelay ummadihii anaga naga horeeyey. markaasuu alla wuxuu yidhi lacallakum tattaquun, waxaa mudantihiin inaa ilaahay ka dhowrsataan. marka ilaahay soonkeeda nagu farad yeelay bishan, farad allahu calaykum siyaama, ilaaha soonka idinku farad yeelay bishan inaad soontaan. farad allahu, marka alla wuxuu nagu farad yeelay, waa uu nagu waajib yeelay siyaamahu inaan soonno ee bishaas barakaysan ee ramadaanka ah. markaasuu nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, tuftaxu fiihi abwaabi aljanna, waxaa la furaa ilbaabaha jannada, وتغلق فيه أبواب الجحيم، البابها نار جهنمنا والحرة أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرك إلهي سبحانه وتعالى ديغ حقيسة كإماتي أو بشان إن البابها جنة سديدة أهلا فرو، البابها نار تنمركها سلحرو. كاسو النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ليلة بشاس لحديد وحا هذي هوين خير كخير بدن من 1000 شهر كنبلوت. 8 sano iyo 4 bilood camalka la sameeyo oo aysan leelatul qadri ku jirin, halkaas habeena ka khayr badan. waa runtii fadli aad u weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummada muxamadiyada uu siiyey. markaasuu nabigu wuxuu yidhi, man xurima khayruha, qofka khayrkeeda laga hoojiyo ee la garab marsiiyo, faqad xurima, qofkaasaa la hoojiyey. runtii waa ayuha alaxiba bishaaro aad u weyn oo bishan markay imaato dadka muslimiinta inay ku farxaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa ay weydiistaan. nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa inuu jeclaa bishaarada iyo dadka in loogu bishaareeyo khayrka iyo wanaaga loogu bishaareeyo. axibbatii fi llah, hada wama kana min tawfiiqin famin allahi waxdah, wama kana min khada'in aw sahwin aw nisyaan faminii wamin ashaytaan. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.